Magaalada Dhuusamareeb waxaa maanta lagu qabtay doorashada laba kursi oo kala ah Hob 081 iyo Hob 025. Doorashadan oo subaxnimadii hore ka dhacday hoolka doorashada magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ku loolamayay 4 musharax waxaana guushu raacday 2 musharax oo kala ah Maxamed Abuukar Jacfar iyo Cadar Shalaqbeen. Doorashadu markay soo idlaatay ayaa waxaa natiijada labadan kursi warbaahinta la wadaagay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Galmudug Maxamed Daahir Guuleed. Rahmaanir Rahiim maanta oo taariikhdu tahay 12 bisha 2022 guddiga doorashada Galmudug wuxuu qabtay 2 kursi oo kala ah Hob Ever 25 Hob Ever 81 kursiga koowaad waxaa isku diiwaan galiyay 2 murashax oo kala ah Maxamed Abuukar Cali Jacfar iyo Xasan Cali Cismaan kooramku wuxuu ahaa 101 tartanku intuusan bilaaban waxaa tanaasulay murashaxa Xasan Cali Cismaan waxaan hab gacantaaga codka ugu qaadnay murashixii soo haray waxaana ugu codaysay 100 cod waxaa maya ku codaysay 1 cod wax ka aamusay ma jirin sidaa daraadeed kursiga Hob Eber 25 waxaa ku guuleystay Maxamed Abuukar Cali Jacfar waxaan sidoo kale qabanay kursiga nambarkiisu yahay Hob Eber 81 waxaa isu diiwaan galiyay Cadar Cali Maxamed Shalaqbeen iyo Nasra Maxamed Dalabey kooramku wuxuu ahaa 71 tartanku intuusan bilaaban waxaa tanaasulay Nasro Maxamed Dalabey waxaan si hab gacantaaga ugu codaynay murashixii soo haray Cadar Cali Maxamed Shalaqbeen waxaa ugu codeeyay 71 cod wax maya ama ka aamusay ma jirin sidaa daraadeed kursiga Hob Eber 81 waxaa ku guuleystay Cadar Cali Maxamed Shalaqbeen waa mahadsantiin. Magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ayaa muddooyinkii dambe waxa ku soo qulqulayay musharaxiin kala duwan kuwaas oo u loolamaya kuraasta la magaalada. Waliid Macalin Xasan Raadi ah telefishinka Dalsan Dhuusamareeb.